waxa uu ahaa howlgal qorshaysan oo ciidamada sida gaarka u tababaran ee koonfur galbeed ay ka sameeyeen tuulooyinka Ceeldoon, Yaaqle, Saydheelow, Ayroble, Aashagaabo, Mukuudo iyo Buulajadiid oo dhammaantood hoos imaada magaalada Baydhabo jaahan kaga beegan dhanka waqooyi. deegaanadan ayaa waxay ahaayeen kuwa maleeshiyaadka al-shabaab ay ku dhibaateen jireen dadka shacabka degani. howlgalka ayaa waxaa hogaaminayay taliyaha ciidamada madaxtooyada koonfur galbeed waxaana qayb ka ahaa wasiiro ka tirsan koonfur galbeed. ciidamada ayaa waxaa u suurta gashay in howlgalkooda ay ku dilaan qaar ka mid ah maleeshiyaadkii al-shabaab ee ku sugnaa goobta. waxaa sidoo kale ciidanka nolol ay ku soo qabteen labo ka mid ah maleeshiyaadka iyadoona sidoo kale gacanta ay ku soo dhigeen hubkii ay ku dagaalamayeen. taliyaha ciidanka madaxtooyada koonfur galbeed oo isagu hogaaminayay howlgalka ayaa ka warbixiyay waxaana uu sheegay in mar walba diyaar ay u yihiin inay ka sifeeyaan dhammaan deegaanada koonfur galbeed maleeshiyaadka al-shabaab. howlgal qorshaysanaa ka deerni meelan jarta Baydhabo 30 kilomitir oo leerow muguurta reer maalin nimankii nabadiidka meela ma la raayay inay ku dhuumalaysadaan ninshay dadka ka dhibaateeyaan ilaahay noo guulay qayb gacanta ka dhignay ma la raayay kan isiin barqay tan mid intiyaala ma la raayay hubdo yusuba qabane oo ma la raayay la khariji ma la raayay كنا محابس كون محابس عن وين سون ولا إلى هنا نقولي فلله الحمد وإشارنا الشعب كان كنول ديجانا دان ما إلى رئيس سيدالو وإشار سيدات نيل شجع نيل شجع الشعب كان نيل شجع بقول إسلافنا هذا الشعب كان نيل شجع وزير كوزارة ورفافين تيا وعيجلين تكونفور قلبيت وقيب كأها هو الجلكا أيها شيء إن دولة قبلت كالصومالية ده كونفور قلبيت حلقان أي وضو qorshihii lagu furi lahaa dhammaan wadooyinka ay go'doomiyeen al-shabaab isla markaasina maanta ciidanka ay u suurta gashay in deegaano muhiim u ah dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee koonfur galbeed gacanta ay ku dhigaan. shabaab meelas ku saaran walkshal bahe marka shabaabo dadka baahan propaganda ka haysataan uliishin isbaradaan marka eedan ma sinin ciidamada geesiyalka madaxweynaha sharafta leen u siin eedan ma sinin oo ciidamada markaas dhiirigeliyo oo garab turun oo hili hoob la garab surunyi eedanka kama nagaan marka lan kasta fadhiga ku kohoy shabaab hoobna ninkana nin surugna wasiir xildhibaan shacab in isla shaqeeyna xukuumadda in isla shaqeeyna shabaab may ku guuleysado laakiin hadii uu iska hirigna maaha dhibaatadu uu habsati dulmiguna ni habsadi sharaf darada iyo karaamaduna ni dhiidi shabaab isku qaado korno uu iska hirigna marka aan iska hirnaadaas in la eedan ma sintiin warkay ma badiyow. maalmihii ugu dambeeyay deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya waxaa ka socday howlgallo ka dhan ah maleeshiyaadka al-shabaab iyadoona howlgalladaasi ciidamadu ay kula wareegeen deegaano dhowr ah oo muddo ay xukumayeen al-shabaab waxaana dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee koonfur galbeed xilligan ay wada qorshihii lagu furi lahaa qaar ka mid ah wadooyinka ay go'doomiyeen al-shabaab.